kulankan ka dhacay maanta magaalada Kismaayo ayaa waxa soo qaban qaabiyay mid kamid ah beelaha deegaanada Jubbaland culimada diinka iyo sidoo kale bahda dhaqanka ee Jubbaland waxaana kulankan uu ahaa mid la isaga horkeenayay beelihii dhawaan dirirta ku dhaxmartay duleedka magaalada Kismaayo kulankan oo ay ka hadleen bahda dhaqanka labada dhinac ee dirirtu dhaxmartay ayaa waxa ay sheegeen inay si rasmi ah u qaadanayaan xabad joojinta loo soo jeediyay iyagoo ku baaqay in maanta laga bilaabo aysan dhici doonin colaad dhaxmarta beelahan ugu horreyn waxa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka ee kulankan soo qaban qaabiyay waxaan wadnaa xabad joojin ehlow dhiigaasayto mid faa'iido leh ma aha mid farax leh ma aha inaad naga ayidaan 100% labadiina meelood ehlow tolow walaalayaalow waxaan codsanaynaa xabad joojin aan ku wada xisaabtano waxaan maanta insha Allah taala aan shir dib u heshiisin halkan ay ka furayaan run ahaantii beesha Sarasoor oo ay kaabayaan culimada diinka shirka dib u heshiisinta oo halkan maanta laga furay oo ay ku dhan yihiin labada beelood oo ku dagaalamay beesha harti iyo beesha Ormala dhibaatada jirto oo ka dhaxaysa labada walaalo oo deegaanka oo dariska ah oo wada nool in nabad loogu soo dabaalo dhiigoodana si macna la'aan u soo ku daadanan lana hela nabad waarta oo ay ku wada noolaadaan in waqti ah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu suurta gelinayo waxa la rabaa dagaal haduu dhaco waxa ku xiga waxay tahay in horta markuu ugu horeysa xabad joojin la sameeyo markii xabad joojintaas lagu dhawaaqo dantaan leenayna waxay tahay heshiis caam ah lagu wada daaqsado lagu wada ganacsado masaajidada lagu wada galo in la helo waxaan hadda u taaganahay ganacsadii odayaasha dhaqanka ee beelaha dirirtu dhaxmaraysa oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay si rasmi ah u qaadanayaan xabad joojinta waxaanu aqbalay nabadda xabad joojinta walaalnimo soo celinta dagaalka tanaasulka nabad qaadashada intaasaanu aqbalay hadaanu beesha hartinahay inta ilaahu iiga marxaanti ah oo umada islaamka ah ay marxaanti iiga ahaada maanta anigoo ku hadlaya afka beesha harti xabad joojintaasaan qaadanay waa soo dhaweynaynaa waxa weeye dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta annaguna waa soo dhaweynaynaa xabad joojinta waa qaadnay si daacada baanu qaadnay waa idinka yeelay marka si shuruud la'aan aan soo dhaweynaynaa xabad joojintaas shalay dawladda ku dhawaaqday iyadoo labadeena nal dul saaray codna aan la siinin maanta annagoo xura in aan dadkeena nabad u qaadno walaalnimo aan u qaadno isjecel iyo gacmo isqabsi iyo caan usulis baa uu isku joogeen aan u qaadno ayaa soo dhaweynayaa waxa sharuud la'aan xabad joojinta inaan qaadanay walaalahayga waa isku dambownay wax dib ma ogi dheefka ma aanan qaadin dhibaato badan baa naga dhacday insha Allah Ilaahay aan soo celino mataqaan nagu soo celino nabadda mataqaan nabad waarta aan helno ayaa Ilaahay ka rajaynayna xabad joojinta waa qaadanay dagaalada maalmihii ugu dambeysay ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxa ku waxyeeloobay ku dhawaad 100 qof iyadoo dagaalada ay ku sibaaheen deegaanada kala duwan oo ay colaadu ka bilaabatay Ilaadan Maxamed TV-ga Universal magaalada Kismaayo